yaa waaye kumuu ahaa qofka dartiisa oo youtube-ka u dhaafay Abera oo youtube-ka ugu baxay shakhsiyaad oo Malaysia jooga dartooda ay youtube-kiisa u dhaafay. السلام عليكم magacayga Azam aanu baxaljeynaya in caafa qabtid hadii ay tahay markii kuurasay asoo boqotay bartaan youtube leenahay subscribe sa u gaarno 1.5 million aad masatin 1.5 million subscribers inaan gaaro waxa ka xiga waa adiga walaasheedii walaalkeyga isa subscribe like taw si sheegay si caawino aheeday nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam hal mar aan ku wasalin dhamaanteena aan ku wasalin waxaan filayaa inaan ku wasalin dhamaanteena okay si caawino kale noo aheeday walaalaheena Filistiin walaalaha muslimiinta ah dhamaantooda ha u duceeyno ilaahay dhibka ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibka ugu dul qaado okay taasi marka soo gudbo maanta miiska maxaa noo saaran maanta miiska waxaa saaran walaalkeena saaxiibkeena walaalkeena macaan Abera qofkii yaqaano ay yaqaano Abera waa ninkan Abera ninkaasi walaalkii qaaliga ah magaciisa Allahaya Abukar Ahmed Mohamed wiilkaasi walaalkeena ah wuxuu ahaa youtuber wuxuu lahaa hami zaid ayuu lahaa laakiin maanta hamigiisi wuxuu noqday mid meel ku dhacay hamigiisi wuxuu noqday hami daciifooge ayaa rabaa inaan ka hadlo guys soo dhawaada dhamaantiin soo dhawaada si qalbiyan soo dhawaada waan jeclahay waxaad tihiin walaalay qaaliga quruxda badan mar walbana taageera garab isiya waxaan leeyahay thank you very much adiga hadii tahay markii ku horeysay aad boqonaysid youtube-keena subscribe soo dhawaw kafee soo qaado qaxwo soo qaado ya hatib like sar video like ha gaarto 100,000 ilaa 200,000 inta awoodan gaarsiya aad u maasantiin dhamaantiina sharaf iyo karaamo qalbi to qalbi ya qalbi to qalbi wala quruxda badan king Azam hada aragtaan wax walbana waa diyaar waa okay maanta miiska waxaa noo saaran walaalkeena Abera wuxuu ahaa nin hadaf leh wuxuu ahaa nin haween maalin umad jeclaayeen sida uu horumar u gaaro asna wuxuu jeclaa mar walba in noqdo hogaamiye sax ah in noqdo walaalaha qaaliga muslimiinta ah in uu agtooda ka noqdo qof lagu jecel yahay badiyaa still hada waa la jecel yahay laakiin Abera waa hami lahaa oo kacsanaa wuxuu ahaa waagaasi asiga Ciida iyo Umar iyo Asad afartooda waxay ahaayeen afar qofood aan caadi ahayn Abera wuxuu ahaa ninka lagu jecel badan yahay teamkaasi waagaasi Abera wuxuu ahaa ninka lagu jecel badan yahay dhammaan youtube-yada Malaysia iyo teamkaasi team 27 Abera ayaa rabaa in maanta wax aan ka dhaho guys soo dhawaada dhamaantiin soo dhawaada si qalbi to qalbi oo hadli doona Abera okay Abera magaciisa saxda ah waa Abukar Ahmed Mohamed wuxuu ku dhashtay dalka Kenya khaasatan Nakuru ayuu ku dhashtay okay dugsiga sare iyo dugsiga dhexe wuxuu ka baxay dalka Kenya laakiin jaamacadda muusan bilaabin okay Malaysia wuxuu imaaday sanadkii 2014 ayuu Malaysia imaaday asiga familkiisa okay Abera wuxuu ahaa nin wax bartay aqoon-yahan ah wuxuu ahaa nin kaftan badan nin qarax badan hadaad qabataan daqiiqad 2 daqiiqad ama 3 daqiiqad waxa arkaysaa adoo qoslayo adoo xanaaqsan hada Abera daawatid qosol waasha dhibmaysi Abera waa ninkan daqiiqad walba wuu qoslayaa daqiiqad walba sakin walba wuu qoslayaa Abera waa nin ilaahay ka taxadar okay dad badan oo adduunka ama Malaysia ama joogan xabad loo galiyay Abera gabadhteeda ay youtube ka dhaafay youtube-kiisa oo hamiga lahaa gabadhteeda ayuu u dhaafay Abera saas baa la sheegay laakiin xaqiiqad ah taas maahan Abera youtube-ka sababta u dhaafay waa sabab badan ajirto dad baa dhaheen ayanta qiyaantay ayanta dhaawacday
dad waxay dhaheen gobol maraykan joogto baa khiyaantay baalaha youtube iska dhaaf anaa ku biilay waxaas ku waa been Abera youtube-ka sabab badan ayuu dhaafay Abera wuxuu ka mid ahaa tiimka team 27 waayigaasi 2020kii wuxuu ahaa ninka loo jecel badan yahay tiimkaas waayigaasi waxaa joogay wiil lahayo Xuseen Bebe walaalkay tag salaama Xuseen Bebe wuxuu ahaa ninka isku hayo waqtigaasi tiimka asad wuxuu ahaa saaxiibkiis ugu dhow uu jecel badan yahay taasay tahayna dagaalka meesha ka dhacay wuxuu ahaa Abera wuxuu ahaa nin youtube-ka loo furay nin talent leh mar walba wuxuu jeclaa ra'yi cusub inuu ka sameeyo ra'yigaasna in loo duubo asad wuxuu jeclaan jiray mar walba ra'yigu kaasado ra'yigiisa inuu asaga qaato mise u dhaho hadduu ku duwanaa mise dara ku duwanaa Abera wuu xanaaqay Abera waxa waaye nin wuxuu jecel yahay wax walba oo kaasado in hor loogu sameeyo laakiin maxaa meesha imaaday dhibaato imaatay maxay tahay Abera kadib dhowr mar ayuu adkaystay asiga iyo asad baa isku dhacay runta dini sheego asad iyo Abera baa isku dhacay markay isku dhaceen 3 mar ilaa 4 mar waxaa heshiisiyay Xuseen Bebe ayaa heshiisiyay Abera kadib wuxuu go'aansaday in youtube-ka oo iska dhaafo muddo 2 sano Abera youtube wuu ka maqnaa magaalka waxaa loo geliyay Abera ayaanita socdeen ayaanita xumeysay ayaanita ma xumeenin ayaaniti asiga waayigaasi jaceylka madaxeedin laakiin kaliya wuxuu ahaa si ay u helayeen views dartiisa bay xiriir been u sameynayeen Soomaalida si loo gado okay taas marka soo gudbo Abera muxuu sameeyay Abera kadib youtube-ka wuu ka baxay laakiin dalka Malaysia iyo adduunyada waxaa loo geliyay Abera oo naag khiyaantay Abera naag dhaawacday Abera naag gaaday waxaas kul waa been Abera shakhs ahaantiisi ay youtube-ka oo iska dhaafay iyo dagaal dartiisa ay youtube-ka oo iska dhaafay qof dartiisa ay youtube-ka u dhaafay asuu hamika lahaa oo guul ka rabay baa dartiisa u dhaafay Abera waa ninkan wuxuu haystaa 330,000 oo followers haystaa waayo xilligaasi hadduu youtube ku jira lahaa maanta waxaa aaminsanahay inuu noqon lahaa youtube Malaysia nin kala marwanka haysto maad asad ayuu dhaafi lahaa waayo ahaa nin kaftan badan qosol badan qaraaxa badan mar walba jecel ummada jecel qof walbana alkiis fadhiyo daqiiqad walba wuu qossiinaya adduunka qosolka waa lacag waa la gataa laakiin Abera bila lacag la'aan ayaa qosii jiray okay taasi markuu soo gudbo Abera kadib Abera asoo muddo 2 sano oo youtube ka maqan ay youtube-ka dib ku soo laabtay yaa ku soo celiyay dad baa isdhahaya naagtii kalteen naagtii xumeysay youtube ku soo laabtay manow Abera youtube-ka waxa ku soo celiyay ilaahay ka sakow walaalkeena qaaliga ah halkaan sharaf u heena israa'u dirina IMK waa nin legend waa nin wax badan fahansan asiga iyo asad ayuu heshiisiyay Abera iyo asad waxay heshiisiyay siiska dhigay IMK kadibna Abera waxa la balan qaaday in youtube-kiisa ku soo laaban doono wax walbana la sameyn doono ee balan qaaday asad kadibna Abera youtube-ka wuu ku soo laabtay markuu ku soo laabtay Abera asad waa ka dhacay aad buu u dhacay kadibna Abera dhowr maalmood oo isku dayay youtube-ka oo xaduubo ilaa 5 video ilaa 6 video ilaa 10 video ama oo kala duubo kadib wuxuu arkay in dalka Malaysia youtube-leyda ay noqdeen dad bahala ah dad in isbedeleen kadib Abera go'aano qaatay youtube-kiisa waxa uu dambeeyay video 5 bil ka hor oo soo dhigay Asiya iyo Cabdullaahi Kashka waa tagi doontaan waa safiir doontaan Abera ninkaasi waa nin qalbi fiican waay xaqiiqada ka hadlo laakiin Abera wuxuu ogaaday dalka Malaysia dhibaato taalo iyo silac taalo ayuu ogaaday Soomaalida kulli oo youtube-leyda meesha joogan waa danaystayaal haddii dantaada ka waayaan way ku nacayaan wayna ka fogaanayaan xaqiiqada saa ognahay Abera waa nin
qalbi fiicana abeera waxaa leeyahay walaalkii qaaliga guusha garabkaaga taagantay mar walbo isku day in youtube-kaaga kusoo laabatid aad meesha ka wadid stiil dadkii shalay ku jeclaa ilaa abtinow way ku jecel yihiin waxay sugl yihiin in adeeg ku arkaan mar saddexaad saa ognahay mar walbo xaalad walbo ee adkaato ee ku samarto waa gudbaa waayo haddaad go-aan leedahay waad gudbaysaa walaalkayga qaaliga ah abeera waxaan kuu sheegayaa in guusha gacantaada ku jirto moo aad dadaashid moo aad guulaysid moo aad dadaashid moo aad guulaysid waa walaalkii waayo waan ogahay dalka Malaysia dhibaatada taalo qof walba og hadda baan aad qof video in dub waxa la yaabaa inuu ku jaakiro oo ku dhaho mashquul ahay meel socda hadii ku duwa inuu ku dhaho laakiin waxa ku sheegayaa walaalkii tahay adkaan ba tahay waxa tahay qof tahay de maasha Allah bedelay walaalahayna Allah naxariisto waxaana bedeshay walaalaheena adeerasheena Allah naxariisto akuku marshale ajakis dadkaas noo bedeshay waxaan dad fani ah dad qososiya ay waxa tahay qof fani ah dad qososiya ana ma ku arko waa iska qosla wallahi ba ku sheegay waa iska qosla walaalkii qaaliga ah waxa ku leeyahay guusha wiligaaga maray qosan waayo hadafkaaga wad gaaraysaa dawala uu gaara still one person hal qofood haduu ku daawado wallahi malagli jaw youtube waa youtube qof ku xumeeyay tomorrow waxa la yaabaa in hoosta imaado laakiin maanta hadaa isbaadishid adeed wax ma duuray wax ma sameynay wax ma qabanay walka naftaada ayaad qiyantay waa ognahay naftaan waxay u baahan tahay raaxo laakiin raaxada waa laga ilaaliyaa waxaa la tusaa dhibaato kuleel xanuun walaalkayga abeera waxaan jeclahay waano ay eeg tahay ummadda Soomaali kulli way ku jecel yihiin abeera youtube-kiisa linkiga hoose ayaa soo dhigi doonaa qof walba waxa leeyahay please taga subscribe saara si u gaaro 400 guul uu gaari doonaa abeera waxa leeyahay walaalkii qaaliya mar walba garabka ayaan taaganahay hadaan nahay team Azam ana ahaanteyda waxaan ku leeyahay mar walba garabka taaganahay dib dheefna waxaan jeclahay inaan kula qaybsado saaxiib waxay tahay walaal ay tahay waa ay tahay igeer aan jeclahay walaalkayga guulayso wiligaaga bin aadan ha isku bahdilin moo isku bahdishid waa moo aan jirtin moo qof ku diido waxa soo qaata qofkaas wax ku diiday wuxuu ku dhahay wax sameeyso qof aad wax ku diidayo wiligaaga ha ka xanaaqin wiligaaga qof wax ku diido wiligaaga ha ka xanaaqin waxa aaminsanahay in qofkaas ku dhahay ka sameey ka wax qabso intaas way walaalkii ku salaama video markaasi dheeraado insha Allah bilaa kariim guushaada waa jeclahay waxaan doonaa guys soo duceeya abeer mardow insha Allah youtube ku soo leeyahay doonaa youtube-ka keen doonaa dhamaantiin salaamaya halkaan video isku duwan doonaa mashruuca caafimaad adiga tahay markuu horeysay asal boqotay bartay youtube-kayga subscribe saar sa gaaro 1.5 million please gaarsi wa salaamaya iska fiiqaraxo salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye